kani waa kursigii ay ku fadhiday Aamina Xuseen Xasan oo ahayd gabar ardayad ah oo maanta ku xubaysan ay ku dhexdileen fasalkii ay xiisada ku qaadanaysay. Aamina waxay dhiganaysay kuliyadda shareecada islaamka jaamacadda Soomaaliya sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashadeeda ayay ku guda jirtay, balse uma aanay suurtagelin in ay maanta badqabka ka soo laabato jaamacadda ay dhiganaysay. fasalkii ay wax ku baranaysay oo aan tagnay daqiiqad kadib dilkeeda waxaan ku aragnay dhiig fara badan, waxaana gebi ahaanba istaagay hawshii jaamacadda. hoyga qoyska marxuumadan ayaan tagnay si aan ula wadaagno dareenka dhacdadan xanuunka badan, ha yeeshee waalidiintu waxay ka gaabsadeen in ay nala wadaagaan dareenkooda. Cabdullaahi Maxamuud Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Soomaaliya ayaa TV-ga Universal u sheegay in ay aad uga xun yihiin dhacdadan isla markaana ay saamaysay jaamacadda. waxaan tacsiyo u dirayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii. waxaan kaloo tacsiyo u dirayaa dhammaan ardayda jaamacadda iyo maamulka intaba aan ka wakiila maamulka jaamacadda. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. intaas kadib gabadha Aamina waxay ka mid ah ardayda jaamacadda, waxay dhigan jirtay kuliyadda shareecada, waxay ku jirtay sanadii ugu dambeysay waxbarashada xilligii breeka oo ardaydu ay ka soo baxeen kalaasyada qaarna ay galayeen oo la isdhaafayay ayaa falkaasi dhacay. gabadhan waxaa loogu tegay qolkeedii galaaskeedii iyadoo weli macallinkii oo hor taagan yahay ayaa dad hubaysan u galeen meeshiina ku dileen. waxaan leenahay Allah u naxariisto. horta dhacdadani waa dhacdo nagu cusub, waa dhacdo xanuun badan in qof ardayada oo waxbarasho soo doonatay galaaskeedii inta loo galo lagu dilo. waa dareen adag ay leedahay, waa ka bedelan tahay dileelka nooca kale oo ka bedelan tahay. waxaan ugu samaynaysaa dareen aad u badan ma ku habboonayn in facilka noocan oo san u dhaco sanaan u qabasho. dhacdadan waa mid ugub ku ah magaalada Muqdisho, waxaana maalmihii ugu dambeeyay soo badanayay dilalka arxandarada ah ee ka dhacaya caasimadda, kuwaas oo ilaa iyo iminka aan waxba laga qaban. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.